marka anaga dhibkan soo marnay runtii dhib weyn baan soo marnay Ukraine markaan kasoo baxnay dagaalku uu bilowday 6 maalmood cunto ma soo cunin biyo ma soo cabin hadee si wacan uma seexanaysid waayo saf baa ku jirtaa safka hadaad ka baxdo dib baad usii dhacaysaa marka runtii dhib weyn baan kala soo kulminay jidka gudoomiyaasha jaaliyadaha Soomaalida ee magaalada Berlin iyo Darmstadt ee dalka Jarmalka Muna Maxamuud Cali iyo Kamaal Jaamac Muuse oo la hadlay MMTV ayaa sheegay in dalkan Jarmalka ay soo gaadheen Soomaali aad u tiro badan oo ka soo qaxay dagaalada ka socda dalka Ukraine Soomaalida ka soo qaxay dalka Ukraine oo ay qayb ka ahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo wax ka baranayay jamacadaha dalkaasi ayaa soo gaadhay dalkan Jarmalka Ukraine waxaan kamid ahayn ardaydii meeshaas wax ka dhiganaysay oo jamacadaha ka dhiganayay marka walahi dhibaato badan aan kala kulanay soo orodkii iyo kala cararkii markii qabto dhacday marka sidii waan iskaga soo baxnay nafteena la soo baxnay marka Soomaalida wax ku maamada nafta orodii kugu aamintaay waa xageena la soo fakanay wallahi Jarmalka aad soo dhaweyn aad qiimo badan ayaa la ku soo dhaweeyay waana ku faraxsanahay Jarmalka markaa imaanay runtii si kale laabana la soo dhaweeyay gaar ahaan inanta Muna la dhahayo runtii aad bay noo soo dhaweysay haddii noqoto markaan kasoo baxaynay Ukraine dhib badan baa la soo kulmay 6 maalmood cunto la'aan biyo la'aan iyo discrimination xagga ka socday Africa dadka ka socday dadka madow si xun baa loola dhaqmayay gaar ahaan markaan xuduudda aan kasoo baxaynay Ukraine markaan Jarmal imaanay aan aragnay si wanaag nala soo dhaweeyay ixtiraam iyo kala dambeyn iyo wax discrimination jirin runtii inantaamuna aan abaal aan u celinaynaa waayo maanta ida si wacan noo soo dhaweysay idoo fiirinaynin qabiil idoo fiirinaynin Soomaali mar walba waxay fiirinaysay qofka muslimka ah oo dhibaysan ka soo cararay wadanka Ukraine Kamaal Jaamac Muuse gudoomiyaha jaaliyadda ee magaalada Darmstadt ee dalka Jarmalka Muna Maxamuud Cali gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Berlin ee dalka Jarmalka ayaa ka hadlay waxyaabaha ay qabteen ka jaaliyadahan waxaan uga qayb qaadanay aniga iyo Xaliimo Xoosh Ahmed Cabdallah waxaan aad uga qayb qaadanay dadkii Soomaaliyeed inaan soo daadgureyno waayo dawladda Jarmalka uguma talagelin marka hore meel la seexinayo waan soo kaxeenay waxaan keenay gurigeyga waan arkay gurigeyna inaan meel la kala seexda la waayay aad ay u dhibaateysnaayeen gaar ahaan lugaha aad bay u xanuunayeen way jir go'naayeen dadkina waxa waxaan u sii kala dhoofiyay meelihii ay jeclaayeen inay rabaan ay sii aadaan dabadeetana waxaan bilaabay inaan baxo oon tago meelahay ku soo degayaan oo la yiraahdo Busbahnhof iyo Hauptbahnhof inaan tago aan dadka ka soo kaxeeyo oo gurigeyga keeno dabadeetana aan sii diro laakiin dad aad iyo aad u dhibanay ahaayeen waxaana nagala qayb qaatay oo kaleetoodo aad noogu caawiyay dad Jarmal ah waxaana la qayb qaatay ilmahayga oo maxaan ku sheegaa u soo ororay dadkii Soomaaliyeed gurigeyga oo gabdhahaygii aan ka bixiyay si ay dadka Soomaaliyeed ugu noolaadaan ee ka soo qaxay dagaalada Ukraine dadkaas waxaan u qabanay waxyaalo badan dadkii rabaan in la dhiibo waxaan siinaynaa informationka waa caawinaynaa ardayda Soomaaliyeed ee Ukraine ka imaatay oo jaamacadaha wax yar uga dhiman yihiin waxaan go'aan gaarnay inaan jaamacadahoodii xataa ka caawino xaaladda Ukraine iyo Russia waa xaalad meel xasaasi ah maraysa dad badan waa soo barakaceen u badan yihiin arday oo ka dhiganayay wadankaas Ukraine jaamacada sidii injineernimo iyo takhtarnimo maantana magaalada Darmstadt waxaan ugu soo gaaray ardaydaas kamid ah marka kulli waa la talinaynaa dhalinyaradaas oo inta soo galeen siba magaalada Darmstadt imaadeen sidii meeshaanayta waxbarashadooda ama jaamacadooda oo xagga ka sii wadanay ka dhiganayeen inta ka sii wataan marka waxaan kula talinayaa dhalinyarada dhan oo soo wala galeen intaysan magaranaysaa aday isdhiibaan hataa wuxuu documentkooda dhan intay wala u dhiibaan dawladda jaamacadaha ka raadsadaan position fiican wixii information u baahan nala soo wadaagaan ka urur ahaan Somali Community Service ee magaalada Darmstadt sidaan uga caawina dhalinyaradaas waa yaal mudakar MMTV Jarmalka